xildhibaanada qaranka oo halkaan isugu yimid maanta si ay u saxaan u toosiyaan isugu dubaridaan dowladnimada Soomaaliyeed oo 27 sano ka hor naga dhintay. waxaan mahad u celinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala hadda labaatan shacbiga Soomaaliyeed oo ugu taageeray ka meel kasta ay joogaan go'aankii aan ka gaaray shirkadda soo weerartay qaranimada Soomaaliya. waxaan idin sheegayaa xildhibaano shacbiga Soomaaliyeed hogaankooda waa ka horeeyaa maanta. waagii qof jacaylka iyo qabiil jacaylku waa dhammaan qaran jacayl baa socda. waxaana daliil ah 8 February oo shacbiga Soomaaliyeed waxay sameeyeen dhiibistii qalbi dhagax waxay sameeyeen daraad maalintii aan go'aanka ka gaaray DP World say isugu duumeen taas baa daliil ah. anigu waxaan ka mid ahaa xildhibaanada saxiixay mooshinka. waxaan mooshinka saxiixay 2 bilood iyo bar ka hor intaan baarlamaanku gelin risaas baarlamaanku intuu fasaxa qaadan ayaan saxiixay. waxaan u saxiixayna waxay ahayd intayda saxiixay markaas cara aan ka qabno madashii oo mar labaad soo noqota. shirkan waa degan yahay hal qof oo qasbi miyaa la hadlin halla muso inoo wada shirkeeda waxaan ka mid ahaa xildhibaanada saxiixay mooshinka oo xildhibaanada mooshinka saxiixay baan ka mid ahaa. waxaan saxiixay 2 bilood iyo bar ka hor intaan baarlamaanku كاميرا قال دوبلين كان شقدي سوايه كوان كاتكو كاميرا شقدي سوايه كان مرة بوش علينا هذا الله على تاريخ اساسا كهرباء حضورنا شفت على مره وفر حيوانها وفر صدى حتى واحد يقولنا نور رايك كان كده عبد الله يا بس واحد عبد الله ميكروفون يبغى سكرين يبغى كلماني ميكروفون اسكو قبو فيلن اسكو قبها ثانك waxaan rabaa xilligan inaan idiin sheego waxaan ka mid ahaa dadka saxiixay gudoomiye Jawaari in mooshin laga keeno 2 bilood iyo bar ka hor baan saxiixay inta barnaamijka fasax qaaday. waxaan u saxiixay wax kale ma ahayn waxaanu ka xanaaqsanayn madashii
gobollada ayaantidood halkaan markay ku jireen كان ماسك له تعال مر دمبه اوكي يلا ماسك